islaamkow islaamkii koonkanugu saxnaayow allahu gargaaray alle wuu gargaaray islaamkow islaamkii koonkanugu saxnaayow. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلكني waxa uu leeyahay sheekh maxay baad ugu nasteexayn lahayd dadka walaalaha ee muslimiinta inay si fudud dhiigooga u daadiyaan. dhiigga islaamku waa qaali aad iyo aadna waa culus yahay. waxay yiraahdeen culamaa islaam sida imaam Ahmed rahimahullah dambi qof uu galo oo ka weyn qof muslima inuu xaq darro ku dilo ma jira marka laga reebo shirkiga iyo gaalnimada. waa cadamu dambi waa dambiga u weyn ee qof muslimi oo aan gaaloobin uu sameeyo. waa ogsoontiin ciqaabka daran arrinta noocaasiya loogu goodiyo loogu hanjabay qofka qof muslima dila waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha waghadiba allahu alayhi walacana waacadda lahu cadaaban cadiima. 5 cuquubaat 5 ciqaab oo kala daran wey. qofka qof mu'mina xaqdarro ku dila si kasta ula kacana u dila abaalmarintiisu waa jahannamo buri ilaahi subxana wa tacaala fajazaau jahannam. muddo dheer inuu jahannamo ku jiri doono ilaahi subxana wa tacaala sheegay. hadduu xalaashado waxa ilaahay ka xaaraantimeeyeyna waaba ku waari doonaaba waayo waxa ilaahay u xaaraantimeeye o la xalaashado waa lagu gaalooba diinta lagaga baxa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay cadhada ilahay inay ku dhacayso ilaahay inuu nacdalayo naxariistiisa qofka uu ka eriyo oo uu ka didinayo. qabyaalad iyo reernimo madaxtinimo doon iyo manfac adduunyo hadhow xujo ku noqon maayo ilaahay horti. qofkii aad dishay allah buu ashkatoon doonaa wuxuu odhan doonaa yaa rabbi sal haadaa bima qatalan ilaahu weydii waxa uu igu dilay. maxaad ugu jawaabi doontaa? jidka siraad buu kuu fadhiyaa qofka uu ku sugaya. ilaahay buu subxaana wa tacaala ka ashkateynaya ilaahayna waa ku weydiinaya maxaad ku dishay buu ilaahay subxana wa tacaala ku odhanaya. maxaad odhan doontaa? qabyaalad baan u dagaalamayey, ma lacag baa laysiiyey waan u dagaalamayey, madaxtinimaan doonayay miyaad odhan doontaa? maxaad ku jawaabi doontaa? wax kastoo aad ku jawaabtaaba xujo iyo daliil iyo wax ku furtaa maalinkaa kuu noqon maayo. ilaahay laga baqo. dhiigga islaamka ee la qaaliyeeyey hala iska ilaaliyo. qof walibana intaanu dhiig islaam daadin huwa fii fusxatin min diini adduunyadiisuna cidhiidhi kuma jirto diintiisuna cidhiidhi kuma jirto suu uhi nabigu calayh isalaatu wasalaam. maalinta dhiig islaam qofku faraha uu la galo ayuu gelayaa cidhiidhi adduunyo iyo mid diineed labadaba. marka maxaa cidhiidhi kuu geynaya? inta aada nooshahayna cidhiidhi aada ku nooshahay aakhirana xaaladda adag ay ku sugayso. arrinka aad iyo aad halaysaga waaniyo. dhiigga islaamkana yaa lagu farxi. dhiigga islaamka yaa lagu farxi. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qatala muslima faاctabata damahu ay farixa bidamihi faاljannatu calayhi xaraam. qofka qof muslima dila qofka muslimkaa dhiiggiisa ku farxa jannadu xaaraan bay ka tahay, mamnuuc bay ka tahay. qof muslima dhiiggiisa wax lagu farxama waa walaalka. qofka muslimkaah waa walaalka. ilaahay baa kuu sheegay walaalkaa wey. abtirsiin ahaan ha kaa fogaado. bal nebi aadam miyaad isugu timaadaan oo meel ka sokaysa aydaan isugu imanin? huwa akhuuk. miyaanad maqal qowl allahi tacaala inama almuuminuuna ikhwa. muminiinta ayaa walaalaha. rasuulku miyaanu odhan almuslimu akhu lmuslim? iimaanka iyo islaamnimada ayaa idin walaalaysay. waana xidhiidh mid walba ka xoog badan oo ilaa aakhira isagu shaqaynaya. walaaltinimada kale waxyaabo kale lagu walaaloobay adduunyadana lagaga tegaya waxyaabaha adduunyada lagaga tegayo aakhirana lala tegaayin bay ka mid tahay. oo labadii wada dhashay hooyihi aabba ay wada dhaleen iimaan iyo islaamnima aanay midayn maalinka waa kala irdhoobayaan oo waa kala yaacayaan. marka walaalka oo aad disho bal ka waran siday kula tahay? ama walaalkaayoo la dilo dhiiggiisa aad ku faraxda ka waran? foolxumo weyn miyaanay ahayn? nacasnimo miyaanay ku ahayn?
in lagugula yaabo miyaanay mudnayn ilaahay ha laga baqo dadka muslimiinta islaynaya dhiigooda ayaan lagu farx ilaahay loo baryo ilaahay dhiigooda inuu kala badbaadiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala nabad iyo isafgarad inuu ilaahay dhex dhigo yaan la dhiiri gelinin dhiigga islaamku inuu daato hadal ha kaga qayb qaadan xoolo ha kaga qayb qaadan dhiirigelin ha kaga qayb qaadan adigu inaad ka qayb gasho ha kaga qayb qaadan dhiigga islaamku waa qaali ilaahay baa qaaliyeeyey wax ilaahay u qaaliyeeyey inaan jabinin oo inaan qiimo radin wallahu aclam